شاي وكهذا. Yes. شاي دوبلي موداك أبو جدا. سوق بيننا يقولي أوه قال علينا. magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Soomaaliya mid ka mid ah ganacsiyada yaryar ee sida weyn u kala socda waa iibinta shaaha goob iyo wado kasta oo magaalooyinka ka tirsan ayaa laga heli karaa meel shaaha lagu iibiyo sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ayaa ah dad si weyn u jecel cabista shaaha sidaas si la mid ah ayaa meelo badan oo adduunka ah looga xiiseeyaa cabista shaaha shaahu waa mid ka mid ah waxyaabaha loogu cabista badan yahay adduunyada marka laga yimaado biyaha oo kaalinta koowaad ku jira maalin kasta 3 bilyan koob oo shaah ah ayaa dunida laga cabaa inkastoo ay kala duwan yihiin hababka ay dadku u samaystaan iyo noocyadiisa haddana koobka shaaha ah waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka balaayiin ruux oo maanta dunida ku nool waana cunsur asaasi u ah martisoorka kulamada qoyska iyo asxaabta waa waxa loogu jecel yahay cabidiisa adduunyada oo idil dadka qaar ayaa u caba shaaha xiise ay u qabaan dhadhankiisa kuwa waxa ay u isticmaalaan dawo ahaan kuwa kale ayaa u caba si ay firfircooni maskaxeed uga helaan dadka qaar ayaaba qaba timaha cabidda shaaha oo aan maalin kaliya ka ahaan karin shaaha inkastoo hadda Soomaalida u kala socneen shaaha badarkii hadii shaaha aad u isticmaalnaabo waayo haddaan hadda shaaha aan isticmaalin madaxa bay xanuunaya waa toba waqtigeeyii xiliyaha sidii soonka oo kale aad bay igu adagtaa waayo soonka maalintii dhan bal soomayaa moogtaa sidii shaaha loo helay looma helayo marka aad ban maxay ahayd madax xanuun iyo waxaan ka dareemaa laakiin mideeda kale marka maxay ahayd maalinta caadiga ee tahay 6 saac waa iska cabaa galbihii oo kale sidii subaxii horta shaaha iyadoo lagu bilaaban horta quraac bada lama cuni karo marka la tirinayo wadamada dunida dadkoodu ay ugu shaah cabista badan yihiin waxaa safka hore kaga jira qiimeyn la sameeyay sanadkii 2009 wadamada Turkiga Morocco Ireland Mauritania iyo boqortooyada Ingiriiska oo ilaa kaalinta shanaad ku kala jira wadanka Soomaaliya waxa lagu tiriyaa wadamada Afrika kuwa ugu shaah cabista badan wuxuuna liiska wadamada shaah cabista badan kaga jira safka 68aad oo adduunka ah marka qaaradda Afrika loo eegana waa wadanka 14aad ee dadkiisu ay ugu shaah cabista badan yihiin wadanka Soomaaliya marka adduunka loo eego xitaa waxa uu ka shaah cabis badan yahay wadamada Mareykanka Indonesia Jarmalka Denmark Switzerland Finland Norway France iyo kuwa kale oo badan qaaradda Afrikana Soomaalidu waxa ay ka shaah cabis badan yihiin bulshooyinka wadamada Algeria Cameroon Niger Rwanda Uganda Libya Zambia Burkina Faso Ethiopia Suudaanta Koonfureed Djibouti iyo kuwa kale oo badan qiyaasta shaah cabista adduunka ee la sameeyay sanadkii 2009 waxa lagu sheegay in qofka Soomaaliga ahi isku celcelis ahaan uu toddobaadkiiba cabo in ka badan rubuc iyo tumun caleen shaah ah oo la kariyay lama hayo taariikh sugan oo ah markii ugu horeysay ee ay dadka Soomaalida ah bilaabeen shaah cabista laakiin waxa la rumaysan yahay in ganacsatadii Carbeed ay dalka keeni jireen caleenta shaaha oo markoodii hore laga helay wadanka Shiinaha qarnigii 3aad ee miilaadiga waa waqti fog oo aan dhaweyn marka loo eego qarniga maanta lagu jiro shaah cabista
dadka qaar waxa uu u yahay wax ay ka helaan fiyoobi wuxuu ugu jiraa bedelka halkii ay daawo qaadan lahaayeen halka dadka qaarna ay ku nastaan gaar ahaan marka ay shaqada soo dhameystaan والله مالين والله سديلي يا عبا شاها صوت شاها يعني لا تيس مدح ضمي فما شاها يعني ياس مالنتي ما خمر عبتا مالنتي لما جت سدح كريك بدنا عبا مركو انا راح الساعه بديسه وانا اوكي الحمد لله حلي ذا عبتا شاه اللي يدو بدنا عبا شاها وحوا صباحده هوري iyo qalbiga camal oo casriya loo yaqaan Soomaalidu waa dad shaaha jecel miyi iyo magaalo meel kasta oo ay joogaan waana cabitaanka ay sida weyn u qiimeeyaan waxaana laga garan karaa mahmaah gaamurtay oo leh rag waa shaah dumarna waa sheeko inkastoo suugaanyahankii garaad xirsi faarax wiilwaal oo qalbi dhowrayay afadiisa uu yiri rag waa shaah dumarna waa iska shaah